iskaashane oo samreynay kalsoonina hilbidaynay daxankarkiya xanuunka jacaylkiya kali ahaanta iskaashane oo samreynay kalsoonina hilbidaynay kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey كلامكي ودبوبي كلي لاب فرح عدونك عادي تدكوك عين جرق الصلمال انتادا ريدي ويكاملو ذي كلامكي ودبوبي كلي لاب فرح عدونك عادي تدكوك عين قصر maalinta kaaga doona nabba kaftanka u xiista iskiyo maanka ku taalay ayaa qira kaalintaada ayaa kulankaaga doona nabba kaftanka u xiista iskiyo maanka ku taalay ayaa qira kaalintaada waxaan halkan u joognay oo ujeedadu ahayd sidaad adiguba ka dhawaajisay inaan ku maamuusno walaashayo Fadxiya Laki oo si aan oran karo dadaal adayg hawlkarnimo wax walba ay ku dheehan yihiin ugu shaqaysay gobolkeega muddadii ay xulka gobolku ay ku ciyaarayeen caasimadda dalka ee Hargeysa marka waxaan ku maamuusnay caawa hal adaygii hawlkarnimadii ay ku contribute gareysay xulka gobolka awdal Fadxiya waxa kale oo ay shahaadadan ku mutaysatay baan oran karnaa maadaama ay tahay gabadh ah oo marka laga hadlayo waxay rag u qabtaan iyo waxay haweenku qabtaan u yar kala duwan tahay bulshadeenuna waxay u eegaan si kala duwan marka anagoo u eegaynaa gabadhnimadeeda waxay ku mutaysanaysaa Fadxiya in lagu maamuso labadan shahaado ee hortida yaala iyo qaar kale badan oo u soo socda baan oran karaaba hawlkarnimada ay mar walba muujiso ee ay بريجي هراء برنامج كي هراء قبلنا لبدي كنا سجالية تبنكي ويكون شرتي وحي كقريب قاعدتي وحوها إن أبورتي جناحسية كل دون سيدا ماشي بابورت لو مرة يوم حي هذين إن بابورت أي برتا قبلها دور كي وجود بيسي لبدا كن يلا بعتن كي برنامج كان قبلنا وحي كقريب قاعدتي يور باهينتا إن تهاي قبل واحد دوبي كرتا إدت جرين كرتا إسكيد يدوس كودا مركا hal hal abuuro iyo hibooyin fara badan oo kaligeed ay mutaysatay walibana ay ku darsatay inay gobolkeeda u shaqeyso iyadoo gabadha ay ku mutaysanaysaa in caawa aan ku maamusno shahaado noocana oo ku hadlaya afka magaca ururka samafalka Anfac Foundation ahna gudoomiyaha ururka samafalka Anfac Foundation caawa waxaan la joognaa inanteedii rad baan oran karaa Fadxiya Laki horta ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa hablaha casharafta iyo shahaado sharafta ku maamusay ee u gartay inay hawlkar iyo maxaan ku dhahay karti iyo dadaal ay ku mutaysatay shahaadada iyo casharaftaasi haddaan nahay ururka samafalka Anfac Foundation waxaan u garanay in anaguna maadaama ay tahay Fadxiya Laki haldoorka hablaha awdal inaan gudoonsiino shahaado sharaf taasi oo ay ku mutaysatay muddadii ay ciyaaruhu socdeen tiraba anagu laba jeer ay Hargeysa ugu tagnay in allayntii ciyaaruhu ay socdeen waxay Fadxiya Laki sawiradii laga qaadayay ciyaartooyga bishii ay maqnaayeen qofkii ka qaadayay ee markasta garoonka la tagayay ee dhiiri gelinayay ee la socotay iyadoo gabadh reerkoogu uga amba baxday siday walaalaheed ay u dhiiri gelin lahayd maxaan ku dhahay hawshaas iyadoo cid la cid u dirtaanay jirin ayadoo isku xilqaantay marka waxaan leeyahay Fadxiya Laki habo
aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalaha baad garab istaagtay waxaad shahaadada caawata anfac iyo tahablaha baad ku mutaysatay waa dadaalkii dheeraa aad u soo gashay maxaan ku raayay gobolka aad u soo gashay aad ciyaartooyada walaalaha aad soo garab joogtay Fadxiye Laki laba habeen anagu casho ugu sameynay ciyaartooyada Hargeysa kowdiyo barkii habeenimo ayaan hoteelka ku hoynay markii xafladda ay soo dhamaatay oo Hargeysa aan geynay marka waxaan leeyahay habo dadaalkaaga halka ka sii wad anaguna garabkaagan joognaa waxaan ballan qaadanaa markastiyada iyo inta kale ee dadaalka badanba inaan sida u garab joogsano oo dhiiri gelino haday rag tahay iyo haday dumar tahayba haba waxaan ku leenahay gudoon aad baad u mahadsan tahay shaqadii fiicneed aad ka soo qayb qaadatay bismillaahi raxmaani raxiim runtii waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadii ugu quruxda badnayd oo habeenkan caawaa joogo oo waliba aniga laygu maamuusayo hablaha sharafta karaamada cisiga leh ee waliba hibooyinka hablaha awdal oo waliba gudoomiyaha garab taagan yahay waxaan uga mahad celinayaa cashadan sharafta leh ay habeenkan caawa ay ugu maamuuseen waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta habeenkan caawa ay habeenada kale iga duwan tahay waliba laygu maamuusayo shahaada sharafiyo Hinda Cadoosh Aare oo ah maamo dhiirigelinta iyo garab istaaga mar walba la garab taagan waxaan leeyahay hambal iyo habar yar oo ururka Anfac Foundation gudoomiyaha waxaan leeyahay mar walba habar waan ku garab taaganahay waan kula shaqeynayaa anigu kullayba ka gabadhaan wixii haween ku qabanayaan si wanaagsan ayuu la qabanaya waana garab istaagsanahay habar waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh qiimaha leh ee waliba ii maamustay ee shahaadadani ii gudoonsiisay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khadra khayro oo ah garabka koowaad ama saaxiibka koowaad ee mar walba shaqada ku leeyahay ay dhiiri gelisa garab istaagta si gaar waxaan ugu mahad celinayaa hablahan quruxda badan leh ee munaasabadan qiimaha leh sharafta leh aan caawa habeenkan cashadan ku kulanay waxaan loobi kareyn quruxdaasi iyo muxuu ahaa makeup-ka wanaagsan ee ay marsan oo waliba ah inad kaliya gobolka ugu sidata Asmaraani oo aanan runtii munaasabada kaba soo qayb galin hadaan muuqaalkaygu nooca ahayn waxaan leeyahay hambaliyo hana iloobina Asmaraani mar walba waxaan ku boorinayaa haweenka gobolka inay meesha u qurux badan ee wajigooda qurxinaysa ay ka qayb qaataan